waxaan maanta miiriyaha ugu yeernay oo warbaahintan u bixinayna waxay tahay inaan halkan ku cadeyno in aan dhisnay golaha sare ee Jamhuuriyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya. waxaan kaloo halkan ku cadeynaynaa inay maanta ku eg tahay xilka madaxweynaha dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay golahani kala wareegeen xilka. waxaan rabaa inaan sababaha iyo sida ay ku cadaay sharciyan inaan halkan ku cadeyno. sida la socdaba dalka waxa dowladnimada keentay heshiis bulsho. heshiiska bulsho oo lagu heshiiyay oo uu madaxweynaha 8 February lagu doortay. waxa xilkii madaxweynaha ay ku ekayd 8 February 2021 balse shaqo gaarsiin ama xil gaarsiin ayay ahayd waxa ay xukuumadana ku socotay xukuumadda xil gaarsiinta madaxweynahana uu xilka ku hayay. haddaba heshiiskii bulsho oo lagu heshiiyay madaxweynaha waxay siinaysaa awood xileed uu ku guto xilkiisa. shacabka iyo dadka kale muwaadiniintana waxay siinaysaa xuquuq aasaasi ah oo aan xuquuqdooda in lagu xadgudbo ahayn. haddaba sida doorashadan muuqata oo lagu fashilmay oo xilgaarsiintii ra'iisul wasaarihii doorashadii ku fashilmay madaxweynihii oo xuquuqdii ay lahaayeen dadka musharaxiinta ah la duudsiiyey oo sida la socotaan dad badan la yiri ma maxaa la dhahaa tartami kartaan. taa ayaa waxaa cadaynaysa inuusan dalka dastuur ka jirin, dastuurkii la laalay, heshiiskii la burburiyey. haddaba heshiiskii la iskula wada joogay oo madaxweynaha siinaysay inuu xilka awoodda dalka hayo asagoo xilgaarsiin ahaa, ra'iisul wasaarahana xilgaarsiinta siinaysay, haddii kii shacabka xuquuqdoodii la duudsiiyey ayagana halkaas ayay xilkoodii ku lumiyeen. sidaa la adligeed maadaama dalka uusan dastuur lahayn, dastuurkiina ay dowladda loo idmaday inay dastuurka ilaaliso aan madaxweynihii loo idmaday uu lumiyey, dalka wuxuu ku jiraa firaaq dastuuri ah. waxaasoo idil markaan aragnay la qeexay la arkay inuu dalka wax kasta ay ka imaan karto, dowlad goboleedkii ay calashaan hadallada ay warbaahinta soo marsiinayaan ay tahay inay qofkay doonaan iyo siday doonaan ay calashaan ayaga wax u leeyihiin. markii la yiri doorasho dadban ayaa waxaa loo qaatay doorasho dadban inay tahay in dastuurka la hareer maro, sharcigana la hareer maro. taa ayaa waxay keentay in golahan la dhiso. golahan haddaan tusaale si idin tuso waxay tahay xashi maandeeq oo lunsan oo dowladdii ah oo ay soo qabteen oo ay ummaddii Soomaaliyeed ku soo celiyeen oo ay dhaheen dowladnimadii waa lumaysaa waana luntay ilaa heshiiskii bulsho oo lagu heshiiyey waa lumay waa la laalay. sidaa la adligeed ummadda Soomaaliyeed in loo soo celiyo maanta oo ay 22 ka maadaama ay waayahan dhan oo madaxweynaha si sharci uusan kursiga ku fadhidin inay qeexaan inay maalin u cayimaan oo ay maalinkaas ku cadeeyaan ay dhahan madaxweynaha xil uu maanta laga bilaabayo ma jirto. ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta ahna haddii ra'iisul wasaare la dooranayo oo baarlamaankii hore la soo ceshanayo wada tashi ku imaato, haddii si kale to degdega baarlamaan golo kale loo dhisayo oo maxaa la dhahaa ra'iisul wasaare la dooranayo, haddii ka imaanayso guddiga aan sameynay oo golaha sare ah ay dhisayso, waxaasoo dhan waa wax aan u cilaaminayno in wada tashi ay ku imaato. golahan waxaan u dhisnay in ay keenaan doorasho degdeg ah oo loo siman yahay oo qof walba oo muwaadin ah sida uu dastuurka ugu siiyey xuquuq oo in la dooran karo waxna ay dooran karto ay ku cadaato. maadaama uu yahay dastuurka ku meel gaar oo siyaasadiisa aan lagu heshiinin, firaaqa dastuuriga ahayd madaxweynaha inuu ilaaliyo ayay ahayd. waa wixii loo idmaday, waa wixii loo doortay madaxweynihii hore, balse maadaama uu shaqadaasoo idil ka soo bixi waaye oo dastuurkii ku meel gaar oo siyaasadii ummadda Soomaaliyeed aysan ku heshiinin uusan oo maxaa la dhahaa u dayacay uusan wali garwaaqsanin, waxaa qasab noqonaysa in ay golahani dhamaystirka dastuurka na ay keenaan. waxaan golahani uu ku dhisan yahay 4.5 oo ah magacyadoodii waxay ku qoran yihiin qoraalada aan soo gudbin doono inta aan soo marsiin doono warmurtiyeedka waxay ku asaas u ah 4.5. sidaa la adligeed waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta waxgaradka
qaybaha kala duwan ee bulshada haweenka culamaa udiinka cid walba ka codsanaynaa waxay tahay hashi mandeeq oo lunsan baan annaga soo qabanay hashi mandeeq oo lunsan oo la lumiyay baan soo qabanay hashi mandeeq ayaan waxaan ku soo celinay inay ilmihii caanihii ka maashaan sida la adligeed dawladnimada waa waajibna saaran hadday lunsan tahay in la qabto intaan wax kale inta la imaado laga qaylinin maanta dastuurkii waa la laalay doorashadii dadbaneed waxaa loo qaatay sidii la doono in laga yeeli karo oo dastuur in lagu shaqeeyo aysan ahayn xuquuqdii qofka muwaadinka ayaa la lumiyey waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay waxaan iclaaminaynaa wada hadal iyo maxaa la wada tashi shirkaasi oo aan maalmaha soo socda aan iclaaminayno goorta uu noqonayo waxaan halkaan ka faraynaa madaxweynaha hore ee dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo haddii uu sii garwaaqsan waayo inuu asagoo ka dhamaaday waqtigii dastuurkiina laalay dastuurku meel gaar ahna lagu jiro siyaasadiisii lagu heshiinayo uu dalka khalalaasaha noocaas ah in uu sii galo uu rabo waxaan halkaan ka cadaynaynaa inuu sida uu madaxtooyada u haysto uu xoogeeda ugu haysto annagana aan madaxtooyo meel kaleeto oo dalka ah aan ka dhisanayno haddaba ciidamada dalka adinkaa u dhaxaysiin siyaasiyiinta waa inaynan siyaasadda ku milmin waa inuusan madaxweynaha idin dhihi karin qof ii soo xir maxaa yeelay sharci uma haysto uu madaxweynaha ku dhaho qof halla ii soo xiro sidaa la adligeed waa inaynan siyaasadda ku milmin haddii aan qaldannahay oo aan qaabka aan ku samaysmanay aan qaldannahay annaga waajibna saaran qof walba oo muwaadin ah waajib saaran oo dastuuriya weeye haddii xuquuqdiisii la lumiyey xuquuqdii shacabka la lumiyey dastuurkii oo la luminayo uu arko inuu qabto maxaa yeelay waa dalkiisii iyo dadkiisii heshiiskii bulsho oo lagu heshiiyey oo lumaya ayaa annaga qabanay sidaa la adligeed cid uu madaxweynaha fari karo oo amar siin karo oo hala ii soo qabto uu dhihi karo sharcigay ku xadgudbeen haddaan qaldannahay waxay u wada taallaa ummadda Soomaaliya sida uu madaxweynaha u qaldan yahay oo uu xafiiska ugu jiro oo asagoo qaldan uu xafiiska ugu jiro haddaan annaga khaldannahay annaga bulshada Soomaaliya ayaan u soo bandhignay fikir siyaasadeed oo aan dalka iyo dadka ku badbaadinayno oo aasaas u ah 4.5 ka dalka iyo dadka ay ku heshiiyeen beesha caalamka waxaan halkaan ka farayaa dalkeena heshiis bulsho oo la og yahay oo qoran oo dastuur ah ayaa jira in uu hareer maray madaxweynaha waa muuqataa hala iska socdo hadal ma aha hala iska socdo waxay wax yeelaysaa bulshada waxay aasaasaysaa burbur waxay samaynaysaa dhaqaalihii intaa la eg oo aan nagu bixinayseen in aysan miro dhal noqonin sidaa la adligeed doorashadan mana dhici karto mana qabsoomi karto maxamed cabdullaahi farmaajona madaxweyne ma aha ra'iisul wasaare rooblana ra'iisul wasaare ma aha dalka wuxuu ku jiraa firaaq dastuuri ah sidaa la adligeed ayaana keentay in aan magacaawno golahan oo aan ku badbaadinayno dalka oo golaha sare oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba in Soomaali inay tashan karto aan ugu caawisaan laakiin waxaan hala qaata hal lagu qasbo qofka muwaadinka ah oo musharaxa ah markii la yiri wuxuu xaq u lahaa musharax ma noqon kartid oo qof jeclaysi la sameeyay oo xuquuqdii haweenkii la duudsiiyey oo gabadhii aysan noqon karin ay xaq inay musharaxnimo u leedahay aysan u istaagi karin maxaa yeelay madaxweynahan ku rabin ama dawlad goboleedka ninka joogan ku rabin wax la qaadan kara ma aha dawladnimada qor isku dhiib ayay ahayd qor isku dhiibkiina maanta inay ka soo roonaato ayay ahayd shalay siday ahayd kama roona waa ka daran tahay ma la arko doorasho siman ma la arko inuu qofku muwaadinka musharax noqon karo waa doorasho boob ah oo cad inay boob tahay sidaa la adligeed dalka firaaq dastuuri ayuu ku jiraa wayna cad tahay maxkamadii kala qaban lahayd dadkana ma jirto cid maanta lagu dacweeyo baarlamaan maanta madaxweynaha xilka ka qaadaya ma jiro saa baarlamaanku waa kala jaban yahay waxaasoo idil waxay keentay firaaq dastuuri ah dalka habaaw dawladnimadiiba habaaw ahayd sidaa la adligeed annaga waa soo qabanay ummadii baana kusoo dhexelinay magacyada guddiga anigoo hadda guddiga u hadlaya codkoodii ku hadlaya magacyada guddiga golaha way qoran yihiin waana soo gudbinaynaa waxaana idinkaga tegayaa in aad u istaagtaan dalkiina iyo dadkiina abaarabaa dadkii haysta dhibaatabaa haysata inta dadka ay ka fakareen hebel muxuu yiri iyo hebel muxuu yiri nabaad guurka laga shaqeeyo
dalkii geedihii baa baaba'ay ummadii roob ma hesho abaaraa dhacaysa ha laga shaqeeyo inta wax khaldan lagu mashquulayo oo uu dawladii madaxweyne iyo qofka hoggaan dal haya waa inuu dalka jihada fiican dadka furaa ma ahan jiha khaldan oo aniga hal difaaca maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii hore ee dalka maanta oo ay ugu dambeysay 21 asagaana xilka iska qaaday annaga kama aadan qaadan annaga waxaan cadeynay kaliya maalinta inay ku eg tahay maalintii xilka uu habaabiyay oo uu lumiyay dastuurkii laguna socon karin sidaan wax kastana ay imaan karaan golaha inta uu ka kooban yahay waa golaha 9 buu ka kooban yahay ama 10 hadii waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyo hadii 4.5 aan xataa 5 dadku waxay ku leeyihiin 4.5 laga baxo 4.5 qaabkee looga baxaya ma inta la fadhiista hadda sidaan oo kale golahan waxa la leeyahay 5 laga dhigo hadii golahan 5 laga dhigo 10 buu noqonayaa waxaan rabnaa waxa soo idil wada hadal inay ku imaato annaga si waxa soo idil looga hadlo baan waxaan dooranay 5 xubin haduu 4.5 tahayna waa 9 xubin baan rabnaa haday tahay maxal dhaha ii sheeg 5 laga dhigayna 10 xubnood bay noqonayaan guddiga marka waxaan hadda dooranay 5 afarta dhiman ama 5ta dhimanna waxaan rabnaa si wada hadal ah in ay ka imaadaan maxal mucaaradka haday tahay muxaafidka haday tahay wax wada ogol si loo helo marka waxay ka kooban yihiin hadda aasaaska waxa aan dhisnay waa 5 qof dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay idinkaga tagayaan salaanta islaamka